dhageystayaal ku soo dhawaada qiso jacayl oo dhab ah oo idin soo diyaariyay gruupka Love Star. Qisadan ayaa ah mid reebtay muruga aan dhammaan, waxa ayna u dhacday sida tan. Maxamed waxa uu ahaa wiil wax ka barta dalka gudihiisa, Maryanna waxay ahayd gabar booyaasa ama shaqaale ah. Waxa uu sii dheeraa aqoon iyo rajo, waxa ayna korinaysay gabar walaasheeda ah oo ay ehel iyo qaraababa uga tageen, ayadana ma lahayn wax aqoon ay ku shaqaysato. Maryan waxa ay ahayd gabar 22 jir ah, waxayna booyaasa ka ahayd guriga Maxamed. Maxamed waxa uu ahaa wiil wax barta, noloshana wax aan ka arag. Waxa uu damac jacayl ka galay Maryan wallow xaalkeeda adkaa. Maxamed ayaa waxa uu xiriir jacayl ka codsaday Maryan. Maryanna waxa ay ka naxday xiriirka jacayl uu u soo bandhigay Maxamed, wallow aysan ku jirin xilli jacayl. Waxa ay ku tiri waqti aan ku fikiro isii, asagana wuu ka oggolaaday. Maryan habeenkii oo idil hurdo ma aysan seexan, waxa ay la soo jeeday muruga xagga jacaylka Maxamed iyo arrimaha gabadha yar oo ay ehelkeeda uga tageen. Waxa ay go'aansatay in ay ka oggolaan arrintii jacaylka, ayay u sheegtay Maxamed, asagana wuu ka carooday. Midaas kadib waxa uu bilaabay hanjabaado ku socoto in uu shaqada si ugu hor istaago haddii kale ay oggolaato. Maryan way naxday, kadib ayadoo eegaysa duruufta haysata awgeed ayay ka oggolaatay xiriirkiisa. Asagana wuu u mahadceliyey, ileen dantiisa ma gaarine. Ayadoo aamintay isbuucyo kadib ayuu habeenada ka mid ah ku dhahay, waan xanuunsanahay ee ii kaalay. Ayadoo ka naxsan ayay u tagtay, ilaa dhowr saacadood la soo joogtay. Kadib waxa uu damcay in uu fool xumeeyo, ayadoo ka diidaysa kana waanisay in badan. Markaas uu bilaabay in uu xoogo, wallow ay la xarbisay, asagana wuu u awood sheegtay, laakiin waxba ma gaarsiin jirkeeda kale, balse shayga ugu qaalisan ee gabarnimo ayuu siiyey. Fadeexad iyo isku soo bax badan kadib waxba uma tarin, shaqadiina waa laga eriyey. Waxa ayna ku tilmaameen in ay tahay gabar xoon.